بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله محمد وصحبه وسلم. مدن قدومية مدن ياشا قلها الشعب برلمان كالصوماليات. وحنكم سلام يا سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن قدومية وزيرك dul maray faahfaahiyena eedeymihii been abuurka ahaa ee wasaaradda maaliyadda laga fidiyey warbixintii ay qoreen koox yar oo ka tirsan guddiga maaliyadda wuxuu ahaa been abuur laga been abuurtay wasaaradda maaliyadda. waa gaf loo gafay dowladnimada Soomaaliyeed. waa dana gaar ah oo la waayay oo lagu dayayo in lagu dhibaateeyo wasaaradda maaliyadda. waa dembi laga galay dadka Soomaaliyeed iyo dowladooda. been abuur waxaan u aqaanaa kalsooni darro. waxaa been sheega qof aan isku kalsoonayn. mucaarad waxaan u aqaanaa qof wax toosiya. laakiin mucaarad wax duminaya waxaan u aqaanaa fulay. intaas way iga arar gudoomiye mudanayaasha sharafta leh. waxaan rabaa inaan dul istaago eedeymaha been abuurka ah ee laga fidiyey wasaaradda maaliyadda iyo dowladda Soomaaliyeedba. waxaan ku hormarayaa kow dakhliga oo la sheegay 8 bilood ee sanadka hadda socda inay ka warbixiyeen sida la xusay oo xubnaha guddigu ay sheegeen. guddiga waxaa hor yaalla xisaab xirkii 2017 hadday gudanayaan waajibaad qaran waxay ahayd inay ku mashquulaan xiritaanka xisaabtii lasoo dhaafay ee sanadkii 2017. si aan u beenino beentood waxaan halkan idinkula wadaagayaa 8 bilood ee tagtay ay warbixinta ku qoreen sidii dakhligu ahaa. waxaan u kala jebinay quarter ama qayb saddex bilood ayaa la isu raacay. 3 bilood ee ugu horeysay sanadka 2018 oo ka bilaabanaya January March waxaana la ka rabay 42 milyan dhibic 2 41 dhibic 2 waxaanu gaaray 42 dhibic 2 waxaanu soo kordhinay lacag gaaraysa 1 milyan. bishii afraad ilaa bishii lixaad waxaana la ka rabay 75 dhibic 7 waxaanu gaaray 82 dhibic 8 waxaan soo kordhinay korodhan 7 dhibic 1. bishii July waa kuwaatarkii saddexaad ilaa September waxaana la ka rabay 116 dhibic 1 waxaanu gaaray 127 dhibic 2. beeni raad ma lehe waa kaas warbixintii mudane gudoomiye adaan kugu soo wareejinaya. waxaan rabaa si aan u soo celinno kalsoonidii ummadda Soomaaliyeed hamigii iyo rajadii ay qabeen inaan sameyno
isbarbardhig kale oo ah 5tii sane la soo dhaafay oo ka bilaabanaysa 2015 ilaa 2018 sideeda bilood oo ugu horeysa sanad kasta. waa kan halkaas ku cad. garaafku wuxuu oranayaa, waxaan jeclahay si aan waqtiga u beeqaamiyo mudane guddoomiye inaad naga guddoonto warbixintan asalka ah, runta ku salaysan, si ay ula wada u arkaan golaha shacabka ee sharafta leh. asagoo garaafa wey, waa barqo, waa maalin cadday, waa run. ummadda Soomaaliyeed ee ogaada, wixii laydiin sheegay dhab ma ahayn. wuxuu ahaa been iyo marin habaabis, wuxuu ahaa ujeeddo gaar oo la leeyahay. waxaan ku faraxsanahay inaan gaaray meel wanaagsan oo aan ka gaaray dakhliga gudaha. eedeymaha waxaa ka mid ahaa mudane guddoomiye, riboodka ku qoran in cashuurtii shaqaalaha ay hoos u dhacday. waxaan leenahay waa waxba kama jiraan. waxaana la ka doonayey 3,233,333 dollar. waxaanu gaaray waa 8 bilood riboodkooda ku caday. waxaanu gaaray 3,789,550. waxaanu soo kordhinay 556,222. waxaan ku faraxsanahay inaan golaha sharafta leh la wadaagno in ku talagalkii cashuurtii beriga, gaar ahaan cashuurtii ay ururin jireen hay-adaha dowladda iyo wasaaraduhu, oo laga filayey 4,448,070 inaan gaarsiinay 3,246,076. waa kadib markii aan la soo wareegay la mideeyey dakhliga, uu dakhligu ku dhaco qasnada dhexe ee dowladda, oo hay-adihii iyo wasaaradihii gaarka u qaadi jiray dakhliga uu ka soo wareegay wasaaradda maaliyadda. mudane guddoomiye, waxaad og tihiin inaan wada shaqayn wanaagsan la leenahay hay-adaha maaliyadda ee adduunka, oo ugu horeyso hay-adda lacagta adduunka. inaan la gallay heshiis la yidhaahdo heshiiska deen cafiska Soomaaliya. heshiiskaasi wuxuu odhanayaa, Soomaaliya haddaa rabtaan inaad hagaagtaan, gacmihiina nadiifiya.
waxaa la sameeyey shuruudahaas ayaa laga gudbaa waana shuruudo loogu talagalay in lagu nadaamiyo hay-adaheenna maaliga ah. kii koowaad heshiiskii labaad ee SMB-ga oo ah markii dowladda madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xukuumadda uu hogaamiyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre aanu ugu nimi SMB2 waxaanu ka gaaray oo aanu dhammaystir oo aanu dhammaystiray 17 shuruudood oo halkaas ku cad oo dhammaantood ay keenayaan hufnaan maaliyadeed iyo kalsooni lagu kalsoonaan karo hay-adaheenna maaliga ah iyo wasaaradda maaliyadda. kii labaad oo hadda dhammaadkiisu uu dhici doono ama dib u eegistiisa la aadi doono bishan December 1 dib u qiimeyn lagu samayn doono wuxuu ka kooban yahay 18 dhammaantoodna waa la gaaray waxaana la ka rabaa bisha March inaan geyno laakiin ka hor ayaan ku baas dhammaan waxay cadeynaysaa waxay markaanti ka tahay hawsha wanaagsan ee ka socota wasaaradda maaliyadda dowladnimada wanaagsan ee dalkeenu qaatay intaasi markay dhacdo su-aasha waa weydiin doonaa golaha laakiin waxaan rabaa inaan sheego markaanu intaa gaar markii wixii tirada badnaayo wasiirku sheegayay la gaaray oo ay ka mid tahay shuruudahan aan sheegay inaanaan deyn qaadan oo deyn lagu lahayn dowladda inaan mushaharaadkii bixinay in qof walba oo maanta mushahar dowladda ka qaata uu leeyahay akoon u gaaro oo qof aan wakiil u ahayn in la raacay hanaankii miisaaniyadda loo ansixiyey ee prioritiska siduu wasiirku sheegay in la ururiyo dakhligii oo ku soo dhacay hal meel oo ah qasnada dhexe oo uu markaanti ka kacayo guddoomiyihii bangiga oo jooga maalin walba 12 markay gaarto in dakhliga dowladdu ku dhacayo qasnada beenlow markaantigiisu fogeeyahay waa ka guddoomiye mudanaya intaas markay dhacdo warbixinahani waa warbixinihii qoreen hay-adda adduunka lacagta iyo bangiga adduunka iyo hay-adaha kale ee ka shaqeeya maaliyadda ee adduunyada u qaabilsan kalsoonidaasi waxay keentay in IDA oo ah International Development Assistance oo ah garaan uu maamulo bangiga adduunka looguna talagalay wadamada dhaqaalahooda hoos u dhacay ama burburay ama nugul in lagu kaalmeeyo Soomaaliya waxaa ugu dambeysay 1988 waa muddo 30 sano ka hor waxaa inta hareer socotay inaanay Soomaaliya u qalmin oo qaadan karin garaankaas nasiib wanaag dadaalka ay sameysay wasaaradda maaliyadda waxaa la gaaray in la guddoonsiiyo deeq laga bixinayo sanduuqaas waxay ila tahay waa hamiga wanaagsan waa dowladnimada soo hoyanaysa waa kalsoonida imanaysa ee adduunyadu inagu qabto waxaase su-aashu tahay 2 qof ama 3 qof oo guddi muhiima ka mid oo dana gaara leh markay gaari waayeen inay nafadeexayaan waxay marka su-aashu u taalla golaha sharafta leh inay isweydiiyaan oo waxaan ku kalsoonaana dadka halkan maanta aad arkaysaan ka hadlaya aflagaadada iyo cayda halkan ka jeedinaya garan waayey inay hor taagan yihiin golihii shacabka Soomaaliya
garan waayey in ummad Soomaaliyeed dhegeysanayso gabagabadaan ka hadli doonaa laakiin waxay ila tahay jawaabta golaha waa sugaynaa tayadaasaan soo hormarsanaya waxaan ku kalsoonaanaynaa hay-adaha adduunka u qaabilsan la socodka dhaqaalaha iyo maaliyadda ammaan bay ka keeneen hufnaan bay sheegeen horsocod bay sheegeen qurux iyo wanaag iyo dowladnimadeena kobaceeday sheegeen taasaan xaqiiqsanaynaa taasaan u sheegaynaa dadka Soomaaliyeed ee maanta na dhegeysanaya inay kalsooni ku qabaan ee aanay dhegeysanin been abuurka iyo mucaaradada macna darrada mudane gudoomiye lacagta Sacuudiga waa laga hadlay waxaan si halka ku hayaa oo aan la wadaagi doonaa gudoonka gudoomiyuhuna uu sheegay lacagtii xisaab xirkeedii waa ka dowladihii noogu deeqay ee Soomaaliya si ayaa ku qancay marka waxaan qanac ka sugaynaa nin kale oo dana kale waxaan qanac ka sugaynaa baarlamaanka Soomaaliyeed waxaan qanac ka sugaynaa dadka Soomaaliyeed waa marag ma doonto in muddo hadda la joogo sanad iyo 6 bilood in mushahar $1 aanu ku baaqan wasaaradda maaliyadda waa lama arkaan aan hore u dhici jirin waa xaqiiqo dhab ah oo qof been abuur sameynaya aanu qarin karin waa qorax soo baxda ugu dambeyntii mudane gudoomiye waxaan rabaa inaan sheego guddiyada muhiimka ah ee baarlamaanka Soomaaliyeed u qaabilsan gaar ahaan golaha shacabka waxaa looga baahan yahay inuu yahay guddiyo isu dheelitiran inuu yahay guddiyo aan lahayn ujeedo gaar ah guddi muhiima oo la mid ah guddiga maaliyadda oo kale inay ku jiraan xubno dana leh oo aan ognahay qandaraasyo laga qaaday iyo kuwo ay doonayaan wasiir nuxurka iyo kuwo ay doonayaan inay ku dhibaateeyaan jihada wanaagsan ee dalku socdo wasiir waa mahadsantahay waxaan ku soo gabagabeynaya mudan gudoomiyaha guddigu waa xisbigu ka tirsan yahay wuxuu ka tirsan yahay xisbigu ka tirsan yahay xildhibaanada golahan ka dhex oorinaya waa idin jeednaa nidaam baa jira waa idin jeednaaye joojiya nidaam xumada mudan wasiir gudoomiye ugu dambeyntii waxaan rabaa mudane gudoomiye ka fariiso xildhibaan fariiso mudane gudoomiye waxaan u baahannahay wariyaa qayb waxba kuma taraysaana jooga waxaan u baahannahay in raaligelin laga bixiyo gaar ahaan uu ka bixiyo wasiiru dowlihii hore ee wasaaradda maaliyadda jawaabta ku habboon waa siin kara laakiin waxaan xusmaynayaa golaha sharafta leh ka daa adiguna talaxtaga wixii lagu weydiiyo walaalu ka jawaab waa mahadsantahay gabagabadii gudoomiye waxaan rabaa in aada loogu fiirsado in guddiyada muhiimka u ah golaha shacabka wasiir waa mahadsantahay golaha shacabka muhiimka ah in la dheelitiro waa mahadsantahay xildhibaanada sharafta leh u kaadiya way ka baxayaan kabacdi waa laydin siinayaa walaalayaalow dad baad wax weydiiseen waa laydin yimid jawaabaa laydin siinayaa ma idinkaan rab inaad sheekaysataan waxaan codsanaynaa inta qoraalka ku horeysa xildhibaan walba inuu fadhiisto wasaaraddu markay dhammaysatana waa idin siinaynaa hadalka waa laydin qoraa